maadada xisaabta waa maadada ugu badan ee ka awdaan dhammaan ardayda meel waliba ay joogaan inta lagu gudi jiro heerarka waxbarashada. iyadoo ay taasi jirto waxaa jira isku dayo badan oo la sameeyey iyo barnaamijyo badan oo la soo saaray kuwaas oo xalin kara xisaabaadka qaar sida abiska lagu magacaabo photomath iyo kuwa kale oo badan. sidoo kale waxaa jira aalado badan oo la isticmaalo sida kulkuleetarada iyo scientifigyada noocyadooda kala duwan. scientifiga ayaa ah mid la geliya xisaabta balse waxaa keliya oo caddaynaya jawaabta oo keliya, ma ahan mid ka bixinayo xisaabta faahfaahin guud. inta badan waxaa dhacda inay abisyada qaar ama ablicationada qaar ay soo saaraan natiijo aan sax ahayn mana caddaynayaan qaabka ay ku heleen natiijadaasi. muuqaalkani waxaan idinkugu soo gudbin doonaa inaad xal u hesho ama aad natiijo saxan u hesho xisaabaadka sida quadratic equationada ama xisaableyda xisaabaadka loo yaqaano iyo aljabrada, iyadoo aad u heli karto si faahfaahsan iyo qaabka natiijada ka soo baxday intaba. maadada xisaabta kuma dhibi doonto maanta kadib. mathbaba waa website xalinaya dhammaan qaacidooyinka xisaabta. soo furo google chrome ama borogaraamka aad isticmaasho, ka qor qaybta searching ee googlaha mathbaba, kadibna u dir searching ama dheh ibar. kadib wuxuu soo saari doonaa website-ka ah mathbaba.com. ku dhufo linkigaas. waxaa toos kuugu furmi doona website-ka. muuqaalka guud ee website-ka waa qaabka. waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay calculate. booskaas ayaad waxaad ku qoraysaa shaxdaasi xisaabta aad doonayso inaad raadiso xalkeeda ama natiijadeeda. markaad qorto kadib waxaad leedahay calculate. isaga ayaana kuu soo saari doona natiijada xisaabtaasi. isla markaana waxaad arki kartaa iyadoo faahfaahsan ama qaabka loogu shaqeeyey iyo waddada loo maray, adigoo ku dhufan kara step by step. kadibna waxaa kuu soo bixi doonta qaabka xisaabta ugu shaqeeyey ama show step by step. markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxaya qaabka guud ee xisaabta ugu shaqeeyey. sidoo kale waxaad gelin kartaa xisaabaadka kale sida xisaableyda ama quadratic equationada iyo wixii la mida ee la xiriira aljabriga. ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan ha ilaabin inaad noo reebto fikirkaaga adigoo inoogu reebaya qaybta commentiska ee hoose.